جدا ku teedsan ceelbuur iyo dhulkaas u dhaxeeya dhulka xorta iyo dhulka nimanka khawaarijta ay haystaan oo saxan xoogan lagu soo sameeyay taliyaasha ciidamada xoogga dalka taliyaha qaybta 12aad iyo taliyaha qaybta booliiska galmudug General Bishar iyo General Qoje iyo taliyaha Danab iyo guutooyinka halkan jooga taliyaashooda guutada 13aad iyo 15aad ciidanka nabad sugidda dhammaan waa la wada socday maantay runtii socod dheer baan galnay waxaan ku soo gabagabeynay magaalada Gadoon oo aan soo galnay hadda waxaan joognaa saldhigeedii bulshadiina waa aragnay runtii dadka deegaamadan waxay diyaar u yihiin in ay deegaamadooda ka shaqeeyaan horumarka deegaankan iyo waxay nagala hadleen nabadgelyada oo ahayd qaybta ugu muhiimsan oo halkaan aan u nimid waa dad u diyaarsan inay qayb maaragtay galmudug ta deegaamadan ay ka tirsan yihiin siyaasadkeeda iyo hoggaankeedaba ay shaqo fiican la qabtaan waxaan runtii rabnaa inaan mar labaad ku dhawaaqno in dadka reer galmudug ay diyaar u yihiin inay iska xoreeyaan kooxaha argagixisada ah ee manaxayaasha ah ee ku habsaday deegaankan waxaan ku baaqaynaa dadka reer galmudug ee ku dhex jira iyo kuwa ugu hanjabaanba inaysan siin waxay ku tilmaamaan sakawaadka waxaasi saka maahan waa baad xoolahoodana waxaa lagu qarxinayaa dadka ummadda Soomaaliyeed inaysan xoolahooda ku dambaabin oo aysan siin kooxahaas khawaarijta tan kalena deegaankan waxaa naloo sheegay odayaal ka tirsan in kooxahaasi ay u xiran yihiin ilaahay idankiis waxaan gacan laga geysanayaa oo ciidamada amnigu ay diyaar u yihiin inay tagaan meesha dadkaas lagu haysto iyo dadka kale reer galmudug deegaankaana loo ballan qaaday waxaan runtii laga samayn doonaa deegaamadan talisyo ciidan oo maaragtay hadda wixii ka dambeeya zuuliya ama aysan dhicin in dadkan loogu hanjabo qori caaradiis kooxo deegaamo kale ka yimid oo kooxaha argagixisada ka tirsan waxaan ognahay argagixisada ku sugan galmudug boqolkiiba 90 inaysan u dhalan deegaanada oo yihiin niman laga soo kireysay meelo kale dadkan inay ciqaabaan loo keenay boqolkiiba 10 kooban oo dadka reer galmudug oo caloosho shaqaystayaal ayaana runtii la jooga waxaan ugu yeeraynaa 10 boqolkiiba 10 kaas inay ka soo goostaan dadkooda ku soo biiraan maamulkooda ku soo biiraan ciidamadooda garab siiyaan nin allaaliya ninkii shabaab ka soo goosta oo hub la soo goosta oo gaadiid la soo goostana abaalmarin baan u ballan qaadaynaa waana bilaabatay in laga soo goosto maalmahan deegaama bacadweyn baa la tagay cadaadaha la tagay dhuusamareeb baa dad yimaadeen kooxahaas ka tirsan waxaan rabnaa in laga soo yaaco ma jirayso meelaha gashiin cir iyo dhulba waxaa ku wajahan deegaamadaas weerar baa ku wajahan marka waa ugu yeeraynaa dadka reer galmudug iyo kuwa kalena waxaan ugu baaqaynaa inay deegaamadooda aadaan dhulkoodii tagaan waxa ay ku jiraan ka tanaasulaan waxaan runtii u mahad celinayaa dadweynaha Gadoon iyo dhalinyarada ku dhaqan deegaamadan laga soo bilaabo Bulacle ilaa iyo Higlaale oo dhalinyaro isabaabashay oo aad u wanaagsan oo dadkooda iyo deegaankooda inay difaacaan diyaar u ah macawisleydii maanta waa la kulannay ayagoo boqol ku dhow waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda ay la howlgalaan ciidamada qalabka sida oo ugu horeeyaan ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad marka runtii deegaamadan waxa u soo muuqda neecawdii xorriyadda iyo neecawdii nolosha iyo neecawdii nabadda inay ku raaxaystaan sida dadka reer galmudug oo tirada badan oo kale ay ugu raaxaysanayaan marka boqolkiiba boqol waa ka mahad celinaya taliyaashana waa mahad celinaya diyaar waxay u yihiin shaqo adag in deegaamadan ay ka qabtaan mas'uuliyadooda gutaan wabillahi tawfiiq wa mahadsantiin